warka xiisihiisiyo xogta caalamka taala halka soo xulanaysa ee xogta aad ka helayso waa Radio Xorriyo. xafiiska quraanka iyo xadiista rasuulka halka soo xiganaysa waa Radio Xorriyo. ra'yiga xubnahan iyo xusuusta halgamaaga halka soo xiganaysa waa Radio Xorriyo. magaalada Jigjiga ee wadanka ogaadeen iyana wararka naga soo gaaraya ee uu na soo gaarsiiyay wariyahanaga magaaladaasi Jigjiga ayaa sheegaya in dhagarqabe dhiigya Cabdi Bade xabsiga loo taxaabay. wariyuhu sida uu noogu soo warramay Cabdi Bade ayaa waxa uu ka mid ahaa kooxdii la socotay Dabaqoodhi Ilay ee sida dhuumashada ah ku soo maray gobolada Wardheer, Qorraxay iyo Dhagaxbuur. wuxuuna wariyuhu intaasi ku daray in markii ay marayaan degmada Daratoole ee gobolkaasi Doolo Cabdi Bade laga xayuubay wixii xilal beenaadka ay hayay xabsiga degmadaasna loo dhaadhiciyay. Cabdi Bade ayaa horay u ahaan jiray madaxa asluubta iyo mas'uulka koowaad ee jeel ogaadeen isagoo ay gacantiisa ku maqan yihiin dad badan oo shacab ah. xilligan xaadirka ahna Cabdi Bade wuxuu ku magacawnaa la taliyaha dhanka amniga ee Dabaqoodhi Ilay. hase yeeshee waxaa loo taxaabay xabsigii uu dadka ku ciqaabi jiray kuna cadaabi jiray waxaana la filayaa maalmaha soo socda in loo soo gudbiyo jeel ogaadeenkii uu dadka ku garaaci jiray kuna jirdiri jiray. wariyaheena Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Jigjiga ayaa warbixinta ninkaasi nooga soo diray magaalada Jigjiga. ina Bade wuxuu ku xidhan yahay Daratoole ku xidhan yahay waxaa ka mid ah dil, kufsi, dhac iyo hanti boob dadka shacabka ka dhacay oo yaan deegaanka ay arinta u soo ninkaana halkaas ayaa lagu xidhay waana la soo qaadaya Jigjiga la keenaya hadda soo maxbuus. waxaa kale xarigiisa saadeedkiina nimankan hadda aad iyo aad ayuu xiriirkoodu u weegsan yahay, aad iyo aad bay hadda u kala jeedaan goosigoodan yareen kala carabkooduna ma yaro, aad iyo aad buu khilaafkooduna u daran yahay. mid walba kale ayuu hadda ku buuxinayaan dacwad dadka ninkana kufsanayay dumarka, ninkana waxaan noolahaa. marka waxyaabahaas hadda dabagal baan ku samaynaynaa ay leeyihiin. marka haddaba sidaas oo iyagoo aad iyo aad saasamada midka kale ku buuxinayo awgeed ayaa ka dambeysay. marka ina isaga hadda waxyaabo badan inuu iskara mariyo doonaya oo dilka iyo dhaca hantida dadka boobkeeda inuu iskara mariyo ku wadaa. marka maadaama dadkan يعني maamulkana waxa sameynaya anu ma sameynayay adu qodobka asalku dhulka ku fadhiyo weeyaan. marka isaga hadda raba iska dhaadhicin iska dhaadhiciyo yani ma la fiican cid la shaqeysa yani cidii iigu xigtay la taliyaha waxa aan qabtay hadda sumcadda uu rabo waa taa isagina maanta aad sabab u joogaa. ka dhagaysa Radio Xorriyo wararka iyo warbixinadii u dambeeyay faalooyin iyo barnaamijyo xiiso leh. Radio Xorriyo codka shacabka ogaadeenaya. sida uu noogu soo warramay wariyaha Radio Xorriyo ee jiido hore Badri Cabdullaahi waxa toddobaadkii la soo dhaafay soo baxsaday oo ka soo baxsaday xilalkii uu hayay gumaysiga Itoobiya madaxii maleeshiyaadka degmada Garbo ee gobolkaasi Nogob oo lagu magacaabo Cabdullaahi Macallin kuna magac dheer Cabdullaahi Baadari. ninkan oo xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka Dabaqoodhiga 12 sano u dambeysay ayaa hadda go'aansaday inuu iskaga baxsado halkaasi waxa uuna si toos ah isugu dhiibay ciidamada qalabka sida ay xoreynta ogaadeenaya oo uu hadda la harsanayo. wariyaheena oo aanu wax ka weydiinay baxsadka ninkaasi iyo qaabkii uu ugu yimidba ayaa waxa uu ku jawaabay. waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Macallin baa la yiraahdaa, wuxuu ku magac dheer yahay Cabdullaahi Baadari. nin caan u ahaa 12 sano ee ugu dambeeyay maamulka gumaysiga ay ka sameeyeen gumaysiga Itoobiya ay ka sameeyeen ee Cabdi Ilay wakiilka uu yahay isna kamid ahaa xilal fara badan soo qabtay madaxafiisyadu ka soo maray degmada Garbo. hadda xilkii ugu dambeeyay ee uu ka soo goostayna wuxuu ahaa madaxa maleeshiyada degmada Garbo uu ahaa, wuxuuna ku magac dheer yahay Cabdullaahi Baadari. haddana waxaa gacanta ku haysa oo uu ku dhexsugan yahay oo uu u yimid shabaada awanala ayuu la joogaa hadda. waan gatay Badri, ninkaasi maxaa sabab u ah baxsadkiisa oo xilkii uu hayay
gumaysiga Ethiopia ee 12 sano u dambeysayba uu ka mid ka ahaa maxaa ku dhaliyay ama ku kalifay inuu xilligan xaadirka soo goosto oo isu soo dhiibo ciidamada qalabka sida ay xoreynta ogaadeenaya horta baxsiga kuma cusba saraakiisha u shaqeeya gumaysiga Ethiopia inay baxsadaan kuma cusba oo xaashida way baxsataa oramada way baxsataa Soomaalidu way baxsataa laakiin xilligan kale xaaliga waxa weeye waxay ogaadeen in xilligoodii uu sii dhacayo iyagii baa isku kacay inay xukumo laftiisa dee ma tabar badno oo waxa weeye xilka waa laga qaaday masiibtooda warar ayaa jiraya marka xilligan kale waxaa kalifay inuu soo baxsado wuxuu arkay meeshu wax lagu daala inayna ahayn sidaa darteed buu uga soo goostay shabaabana wuu u liitay waan gartay Badri ma jira wax ciidana oo la soo goostay maleeshiyaadkii uu xukumayay mise asaga keligii baa idin soo dhiibay isaga keligii shabaabda isu soo dhiibay shabaabduna si fiican bay usoo dhaweysay si mas-uuliyeed baa loola dhaqmay ma ayna jirin dadkii maleeshiyadii xukumay cid ah oo la socday mayna jirin maxaa yeelay dee isma aaminayaan oo ruuxbadeed buu ku xidhan yahay way googoostaan oo nin weliba madaxiisa u dhaqaaqaa hadda muddo dil laga joogo mid kamida ciidamada hawaarinka yaa wuxuu kasoo goostay meesha la yidhaahdo adigu gobolka dhagax buur tuulo ka tirsan buu kasoo goostay geesaloley la yidhaahdo isagoo hubaysan ciidamada shabaabda wadaniga xoreynta ogaadeen inuu u yimid kadibna intii qalabkii ay kala wareegeen baa meeshii uu rabay in la gaarsiiyey marka baxsigoodu wuu socdaa oo askarta iyo saraakiishuba way socotaa moraal xumo iyo maogtahay wixii oo sii baaba-ayo oo sii dimaya markii ay arkeen nin way gacmaha taagaya oo uu rabaa in uu waxan kale iskaga dhex baxo waa tahay Badri hadda waxaad igala hadlaysaa gobol ka mid ah gobolada ogaadeen iyo jiida horaad igala hadlaysaa ood ku sugan tahay ninkaasi soo baxsaday ee madaxa maleeshiyaadka degmada Garba ahaa waa Cabdullaahi Baadari ma area ku sugan yahay mise area kale lagu hayaa hadda qayb kamid ah qaybaha shabaabda wadaniga xoreynta ogaadeen ayuu ku dhex sugan yahay si fiicanna waa loo soo dhaweeyey marka hadda anigu meeshan aan kaala hadlayo ma joogo laakiin waxaan isku dayeynaa si waraysiga dheeraada warbaahinta uu u siiyo in aan warbaahinta usoo bandhigno yaanu isku dayeynaa hadda laakiin goobtan aan kaala hadlayo kuma sugno goob kale ku sugan yahay waan gartay xubnaha ka soo goosta maleeshiyaadka iyo maamulka gumaysiga Ethiopia ee Cabdullaahi Baadari kamid yahay ama kii hore uu kamid yahay ama kuwa kale soo goosta markii aad soo dhaweysaan ma waxay u soo goostaan inay kamid noqdaan ciidanka qalabka sida ay xoreynta ogaadeenaya mise naftooda ay badbaadinayaan oo kadibna meelaha ay rabaan ba u sidirtaan labadaba way noqdaan oo qaar waxaad arkaysaa kule waxaan rabaa inaan ciidamada kamid noqdo oo nimankii aan u shaqayn jiray aan la dagaalamo faa'iido fara badanna waan keenayaa oo iyagaan aqaanaa oo waxa weeye khasaaraan u geysan karaa kuwa saas u yidhaahdaan waa laga yeelaa oo waa la hawlgeliyaa runtii wax badanna way taraan kuwana waxay yidhaahdaan waxaanu doonaynaa in dalkana laga saaro si lacag la siiyo oo dad loo sii dhiibo yaa meesha uu codsado la geeyaa laakiin Cabdullaahi Baadari wuxuu kamid noqday kuwa doonaya inuu shabaabda ay kamid noqdaan oo dib ula dagaalamo nimankii uu xukumay qoladaas intuu ku jiraa wuxuu diyaar u yahay inuu Ethiopia xabad ku soo rido kaga hor yimaado waan gartay Badri sidee loo aaminayaa nin ahaa madaxa maleeshiyaadka degmada Garbo oo 12 sano maamulka gumaysiga Ethiopia ku soo jiray inuu si dhib yar sida ugu soo galo ciidamada qalabka sida ay xoreynta ogaadeen iyo uu yiraahdo waan idin la shaqeynayaa inkastoo uu muwaadin khaldamay yahay waxaa lagu aamini karaa dee waxaa jira rag u tababaran xubno u tababaran yani siyaasadda iyo baaritaanka iyo waxyaabaha ku tacalluqa marka raggaasaa baadhaya markii la xaqiijiyo kadib waxaan inuu dhab uu ka yahay unbaa la hawlgelinayaa laakiin dee markii saas ugu yimaado uu sheegto inuu shaqaynayaba lama hawlgelinayo waa la xaqiijinayaa oo qoliyo shaqadoodu intaa ay tahay yaa la wareegaya qofkii marka ay xaqiijiyaan kadib unbaa ama la hawlgelinayaa ama meelo kale la geenaya waan gartay ninkan hadda idiin soo dhiibay ee 12 sano ee u dambeysay maamulka ka soo mid ahaa ma jira wax dambiye ah oo lagu hayo oo laga yaabo in lagu qaado ama loo qabsado ama lagu aamini waayo oo uu ka galay shacabka rayidka ama uu ka galay ciidanka qalabka sida xoreynta ogaadeen ama guud ahaanba qadiyadaba kolley dee ninka meeshiga la shaqaynayay buu ahaa oo dee systemka dhan ay jiray uu ka shaqaynayay wuxuu ahaa nidaamkii dadka cabrinayay ee leynayay ee ilaa hadda dhibaatada ku hayay laakiin hadda isaga shaksiyan Cabdullaahi Baadari xaaladihiisa gacanta lagu hayaa hadda marka inaanu kasii hordhacno aan wax sii sheegno ma rabno marka baaritaan buu ku jiraa iyo xaqiijine markaa kadib
baanu sheegaynaa isaga sidee buu asagu u arkay meeshii uu maamulka ka ahaa ee uu kasoo goostay ama kasoo baxsaday iyo nimankii nanduurka joogay oo u yimid ee qaabkii ay usoo dhaweyseen qaabke sidee buu u arkay aad iyo aad buu uga yaabay maxaa yeelay waagii hore dee nimankan uu u shaqayn jiray ee gumaysiga hoostoogay wixii ay kusoo howlgelinayeen buu aaminsanaa kadib markii uu go-aansaday shabaada inuu u tago xaqiiqooyin uu helay darteed in shabaada sida lagu sheegaya ayna ahayn yuu usoo baxsaday iyo meeshii uu joogay oon mustaqbal lahayn marka aad iyo aad buu u yaabay habka loo shaqaynayo habka loo ixtiraamayo habka loo soo dhaweynayo yacni dawlad degan oo weliba cadaalad ah yuu u yimid marka wuxuu nidaamkiinan aad iyo aad baan ugu begay kuwii aan ka dhex shaqayn jiray ee kamidka ahaana meel banaan bay fadhiyeen buuli marka idinka laydin eego habka aad yani xaqa u doonaysaan habka aad shacabkiina ula macaamilaysaan habka aad wax u maamulaysaan aad iyo aad baan ugu qanacsanahay oo lagu begay buuli waa tahay aad baad umahadsan tahay bedri cabdullaahi wariyaha raadiyo xorriyo ee jidda hore oo nooga warramayay baxsadkii cabdullaahi baadari iyo qaabka uu hadda ugu dhex sugan yahay ciidamada qalabka sida ee xoraynta ogaadeenya hadduu ilaahay yidhaahdo dhegaystayaal waxaanu ku dadaali doonaa in aanu waraysi la yeelanno cabdullaahi baadari laftiisa marka ay noo suurto gasho ee ugu horraysa xulashada warkiiyo xigmadkii rabow ku xidhna oo xorriyo xogta ogo ku xidhna oo